darbaajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن مانتا عن سود ويننا فنان كنوين نمعان عبد الرحمن نمعان هلاع دمان رئيس سويدن هدانا هاي مانتو حن سود ويننا ولكن مرتي نوعا وحاينو لجوغا فنانين فربضان وحن سود ويننا يا حلبان كين عبد القادر كسود وو وهذا هاي وحا شرف نوعا نغو رئيس سويدن رئيس ستوكهولم inaan maanta ku soo dhaweyno halyeeygeena weyn fanaankeena weyn nimcaan cabdiraxmaan xasan magaca dhan waan garanayaa ku soo dhawow Sweden aniga iyo reerkayga iyo ehelkayga iyo dad la jecel yahay oo dhan baa magaalada ku sugaya oo runtii ku soo dhaweynaya Soomaali weyn oo dhan baa ku taagan oo runtii ku hambalyeynaysa فنان يسوقان لما كسكو مسؤول باطاهي أقاسمه هو الذي نجعلنا وابري مركا مقع وين ونقوين أنا خاطسا دتكني كسو كوري هو الذي وابري مركي هاين هو الذي أب ودنك لو ودا قدريو هيركاس إناد جارسيسان رجينينا أو أد ماشي أد نقول لي كسو دلاشون لأن يرو maanta runtii aad ayaa loo jecel yahay marka ku soo dhaw Sweden ku soo dhaw Stockholm waxaan maleynayaa aan u maleyn doonaa Josué oo raaci doonaa inay noqon doonto hit meesha ugu fiican oo aad martay Turkan inay Stockholm noqoto marka soo dhaw aad iyo aad baan horta walaalkay u salaamayaa nimcaan cabdiraxmaan xasan nimcaan hilaac nimcaan annagu laba qof oo walaalaa oo in farabadan walaalaabanay rag farabadan oo ugu horeeyo Axmed Weli Ibrahim Maxamuud Fadle ayaan maanta halkan uga mahad celinayaa ninkan aad arkaysaan dhiig rag baa ku jira ninkan nimcaan cabdiraxmaan marka dhuuntiisa laga imaado aniga iyo isagaba rag baa dhiigoodi ugu jira waliba ninka Axmed Weli la yiraahdo كو هكنقو مقع لبادنا وحدقها جيسكي هاي وانكو فرحتناهي إن فنانين كصوب بحذي مقع حدقها جيسكو أي نقدان كو ugu saameynta badan bulshada maanta la joogo sababtay doonaha ugu soo waliba nimcaan oo agaasima ah oo mas'uulka ugu sareeyo fanka Soomaalida maanta aynan barbar taaganahay oo halku shalay taagnaa intuu ka kacay oo halka taagay waa magaca fankana sharaf bay u tahay aniga iyo in kale oo isaga ay saaxiib yihiin oo yabaal farabadan isku leeyihiin sharaf bay u tahay maanta halka Axmed Weli baan ka salaameynaa nimcaan waa salaamaya aniga nimcaan fankaygu qayb weyn ku leeyahay anigu dadka ma baranay isaga dadkay baray waa been anigu dadka fanaanka ayaa abwaanka dadka bara anigu waxaan baan qornaa nimanka dhuunta fiican baan u dhiibnaa dabadeedna wixii bay bulshada gaarsiiyaan dana hadhow baan noqonaa ninkii u dhiibay nimcaan iyo BK iyo mursal iyo nimanka wuxuu dhiibay baan noqonaa intay anaga magacayaga ku leeyiin iyo intan kooda ku leenahay iyo inta la isku leeyahayba waa intan aan walaalaha ku nahay nimcaan dadkan ugu jecelahay khaasatan waliba la isku kaayo tiriya aadka u saaxiibka labadayadu ayaan nahay walaalkay aad baan kuugu hambalyeynaya horumarkaaga aad baan kuugu hambalyeynaya talaabooyinkaaga quruxda badan nolosha ka gaadhay shalay aabba maad ahayn maanta aabba tahay shalay nin yaroo dhalinyaraadaad ahayd maanta ninkaa odaygaadaad tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kulanno adoo darajadii aad joogtay mid ka sarreyso ka fiican joogta aniga aad bay weliba wallaahi farxad aada ayay ii tahay jacaylkii qabiyoobay muu qabiyoobay بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo dhaweyno si qurux badan gacmo furan iyo qalbi furanba fanaanka nimcaan hilaac oo aad wada garanaysaan runtii waxa u jooga madax fanaaniin iyo shacab fara badan waxay leeyihiin ku soo dhawow Stockholm sharafay noo tahay waana ku faraxsanahay nimcaan waxaan ku soo dhaweynaa Stockholm هذه الدموع تتحي
السلام عليكم دمان si guud iyo si gaar ayaan idiin wada salaamayaa ummadda reer Sweden khaasatan reer Stockholm walaalkeen fanaankeenna Nimcaan waan soo dhaweynaynaa annagoo si garba siman u soo wada dhaweynaynaa waxaan leenahay Nimcaan ku soo dhawow Stockholm هذا ما سنتين دمانتين walaalkeen Nimcaan Hilaac ayaa maanta soo dhaweynayna anagoo ah reer Sweden soo dhawa walaalkeen Nimcaan anigu de fursad baan u haystay inaan Nimcaan hadda tourkan aan kula jiro Europe oo magaalo kasta tagno Nimcaan walaal once again ku soo dhawow Stockholm meeshan waa showga qarniga taa anaka kugu ballan qaaday anagoo isku duubnan marka anaan u kala axan magaalooyinka kale de meeshii aan ka soo barbaaray ku soo baxay xagga waa Sweden marka of course gacmo furan ku soo dhawow walaalo taariikh waan ka dhigaysaa once again Europe ما شاء الله marka hore waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha khaasatan waddankani aan maanta martidoonahay waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inay soo dhaweeyaan dad qiimo badan aan jeclahay aniga qaaligo ah run ahaantii soo dhaweyntiin waa mid aan si gaar ah aan xusi doono qalbigeygana ku taala waxa dhinacayga jooga Jaylaani bidixdan waxa jooga Maxamed Xasan Xuseen Lafoole oo aad iyo aad aan jeclahay ahna banaan aan ku daydo oo badan dadku waxa weeye waskay ogyihiin waxaan rajaynayaa inaanu bandhigan iyo waqti fiican iyo waayo fiican wada qaadan doono marka labaad waxaan fariin kale u diray reer Sweden oo maanta martuunahay runtii waxaan rajaynayaa toddobaadka bisha inay wax noo qabsoomaan bandhig qurux badan hadii la helaa qiimo badan waddamadii aan soo marnay runtii way tartamayeen laakiin waxaan rajaynayaa inay tani ka sii badiso hadii ilaahay wada joognaa aad iyo aad badan ka celinaysa dhaweyntiina